Mareykanka waxaa ka socdo banaanbaxyo aanan horey loo arkin. Banaanbaxyadan ayaa waxaa lagaga soo horjeedaa xukuumadda Donald Trump. Dadka waxay iskugu jiraan sidaad arkaysiin banaanbaxayaba dadkii Donald Trump codeeyey iyo kuwa aanan u codeynin. Sababtana waxa weeyaan Donald Trump markii uu ku dhawaaqay in uu adduunyada dhan uu ku soo rogay tariifs ama canshuur badeecada ka imaanayso. Taasna waxay ka dhigan tahay in dadka shacabka Mareykanka ay ku qaaliyowdo maciishadii. Adduunyada inteeda kale isla markiina waxay reaction ka sameeyeen in ay dollarka boycott ku sameeyeen oo lacagtii dollarka raqiis ay sii noqotay. Sidaas daraadeed Mareykanka waxaa laga yaabaa siduu banaanbaxyadan isku soo tarayaan inuu isku bedesho kacdoon. Waxay leeyihiin dadka Donald Trump must go waa inuu baxaa ay taagan yihiin. Dabcan Mareykanka wixii yaaba waaweyn haddii ay ka dhacaan dunida inteeda kale saameyn ayay ku yeelanaysaa. Marka isha aan ku wada heenaynaa wixii Mareykanka ka dhici doono maalmaha in soo aadan kulley saameyn way kugu yeelan doontaa page-kay ku xirnaa wixii aan akhbaar soo arkana kulley waa idiin soo gudbin doonaa sheerka. Asalaam